السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله القصود هذا برنامج كيني أو كما قاعد هذا 125. وحاوغاني سين برنامج كين واقعتي سلوات أو أسبوع لبعض سمينينا. مر كمان توحنا بين هنا كهذا النوع. قبيل. وفانتنا أملانا وحا عربنا هنا كهذا النوع. وحاول شيء أو صوماليا بابي أو قح. يهوب يبق يكلا غوريتان ينعب يجعل يوحك سوسكوكين صوماليا كربي قبيل صوماليا بابي قبيل صوماليا كلجي قبيل صوماليا دقن يدباتو يدقنيمو ينعسنيمو وحكستو ادوك لا شيغا او دباته يا اوكين runta daarabtiin Soomaali waxa abar ka dhigi oo dhulku ku jiiday oo baabi'i waa qabiil qabl muku la galaya qiyaamana muku heelinaya maskaxdiina fura oo ka shaqaysiya 25 sano xarbi marka daalin iyo dagaal iyo dhibaatooyin waxa ka sii daran wali markaan guureena ama qaxeena ama tahriib aan ku jirno qabiilnimada hore u sii qaadana ha oonin qabiilo waqtuga ha oonin girka ku haysta ana yurub ku geena ha oonin yurub soo baabiinina qabiilo yurub la imaanaya inta soo wadama la soo maray dhibaatooyin qax iyo abaar iyo wax kasta la soo arkay يوروبا الإيمانية كان ugu qatarsan ugu xariifsan waxa waa jaamacadu gala okay jaamacad markuu gala jaamacadii uu ka soo baxaya markuu soo dhameeya meel uu istaaga waxa leenahay ninka ma sha Allah wallahi yarkan walaalkiin waa Soomaali waay jaamacadu ka soo baxay waxaan arkaynaa bal muxuu ka hadlayaa waa dhageysanayna yaa inuu ka hadla qabiilkiisi yaa inuu meesha u dhashtay kan amal هل بنادر على دكتور محاس قبيل لما ودينا هذيك سامة هذه جامعتنا بو صبح ورا هدا دودي ست يا اخي صومالي ما كانوا مقعد كدود وركوا انا كان بكسو دالني هذيك ما لو سو ديرت اوكي هورت دب ما لها تصدق اي شيء بعد صومال ما تهرت واحد شيء سمعت صومالي واحد وين منادري صومالي مجرين ياك سو علبه صومالي مجرين ور حمر انا قاعد احتقني ور عجيب واحد انا حمر اذن كلا دستن اوكي محمد يا كل ديسبرك هذا الايشاق يا كل ديسك marka leeda xamar ana ka dhisnay xamar hal guri ma u manayno saadii shaqo waa ku fahansanay marka leeda xamar ana ka dhisnay waxa ka wada qabiilkaada dhisay laakiin qabiilada kale maxay sameeyeen qabiilada kale waxba kama jiraan wax isku sheegaysan 55 laandar baa isku sheegaysan Ethiopia ma doontaan ma arinta soo weynta aniga ma gali karin ماشي هذا بسلام انت صاحب ورهاد وحان قارني إنا مساجد قريها إلهي معركة إنا قبيل كل خيبسنا مركو حاجة مقالون كدن أو يوروب كيالا مقالة كستا رباطة دا هست وحال نسكو هستا مساجد كان قبيل كيه وقامنا كان ومسجد الهدى ومساجد كي ugu horeeyay ee Soomaalida Leicester ay furtaan طبعا مساجد سبحان اسكله قبيل دعس كان ومسجد الفرقان كان وحاوي قبيل كي بردس كان ومسجد ابن عثيمين كان وحاوي قبيل كي كبتالك أرض halkana waxa ku yaala masjid Quba كان وحاوي كدحبح هير كدحبح اسكله Shit, man. That's good. كم واحد لكن والله لو حقربنينا اوغانا مساجد حط ميقا اسكو جيران بل ما نفهمسين كتا واحد ميقا مسافه اي ka u dhaxaysa masaajidadaas labada masaajid waxay isu jiraan 50 talaabo maxaa tiri 50 talaabo maxaa waa dantani uu qasabtay ina afar masaajid oo afar qabiil kala leh ina halaami la dhis إلهي يقدر شيء ما حكميا يعني أصوب لعرنتاس wadaadadii iyagii baa cudurku ka jira cudurkiina dadkay ku beereen macnaha wadaadadu waxa waaye maadaama iyaga ee dadkii oo maaragtay ixtiraamayo oo dadkii inay jidkii saxa ay tusin lahaayeen dadkii hanuunin lahaayeen iyaga dadka kala geenayaan marka yaa inta aadnab waa ilaahay noo gargaar wax kale aan dhahay malaha كون جالسي قبيل وحاواي إنا عن homeless كنقول يوم ولينا ما عرفتين هويا وصومالي يعنو جيدي لبصنا يوحك بدن إني هاللامي لندن تحديد جيفان لندن مجالده وحاواي بدنا dadka adduunka cilmiga laha isku imaada dadka ugu way araga
dadku ugu farsamo yaqaana adduunka caan ay ku tahay magaaladaas dhexdeeda waxaa degan Soomaalida oo badanaa lagu yaqaana tacliin ahaan cilmi wax kasta Soomaali kaliya maahan adduunka dhan iskugu imaaday magaaladaas waxaa degan hooyo Soomaali cunugeedii 2 sano iyo wax ka badan ee waxay jiifaan derbi intaasoo Soomaali in hor igadaal u sii socota way fiirsanayeen kulligoodna way ogyihiin in hooyadan qabiil ay leedahay kulligoodna waxa waaye ma rabaan inay ka hadlaan mana inay dhaxgalaan maraba tan ugu khatarsan way la hadashaa assalaamu calaykum walaala way fiirinaysaa hooyada waxay qaaday shock noloshii shock qaaday qof fahansan ma laha arintaas waa imaanaysa 5 daqiiqo wallahi waa la hadlay aniga baayaanto bas iga tagay waa ordi baskii aan tagay waa si dhameystir waa sheekada qof kastaas ugu dhaxaya laakiin waxa ogaanaysid intaas oo dhan hor igadaal u marayaan way ogyihiin qoftan iyo u dhalatay laano qof kasta oo qabiilkeeda haddii jiri lahaayeen intuu istaaga heer fulaana nahay war heer fulaana nahay war tan mana qabatee ee kaaliya aan fadhiisano inantii heer fulaan halkaas fadhisee lacagaha loo soo aruuri macquul miya يعني هوي صومالي أو يعنقيدي إني مدة 2 سنة يبر أم 2 سنة واحد بافتي إني ماشيس جيفان وحنا عدي أنت 2 سنة ماشيس جوكتر نين أو لا ميجاس للدقن أو مركز تمرق 2 سنة أنا هل كان دقنا فردا كسي هرنا ويفرد ولا المحارب نينا أوجانا 2 سنة دان هور يقدر أنت مريس عاد قفتن فيرنيس هوي صومالي ما أودي واسي إنا دهدت هوي balkaali gudaha soo galay seexa iyagu mar waxay leeyihiin gurigeena kala soo saaray in wali celiyaa rabnaa kale gurigaasna waxa maleynaa inaanan dib lagu celinayno yani sababtii looga saaray jirto arinta kaliya oo ka gaaray waxa waa inuu iida guri laga soo guri wuxuu ku soo maqlay maqaayad cidiis maqaayad asagoo fadhiista markano dad ka alifteen waana qana anaga Soomaali badana Yurub joogan qofka hal maalin markay arkaan maxay sameeyaan qana CV uu sameeyaan CV waxa la hayaa noloshaada qofka tahay fulaana tahay magacaad yaa waay ayuuha yaa waay abootada yaa waay yaa ka sii dhalatay qabiilkaada yoo ahay ta iika ku sameynaa marka hadda ninkaan arkusin wuxuu leeyahay waxaan maqlay inuu gurigeedii ama asaga uu og yahay ama moogiso u badniga hadalka wuxuu ku leeyahay asaga 2 guri in laga soo buriyo oo mar labaad inay ku noqonayaan amalno la xirta u sheegtay amal midoo waxay leedahay hadalkeenu way diidan tahay ee maxaa uu la hadashay ishan maxaa dhahay habkeen ula hadash waan soo agmaray assalaamu calaykum aan dhahay way iga qaadi weysay horta waa la hadashay muxumo laakiin habka ula hadashay qofka la hadlaysid ma qof horta naf ku jirta ma qof 2 sano laami jiifo oo hooyo iyadu cunugeedu ay diidan inuu qof la hadasho qofkaas ma u baahan yahay assalaamu calaykum walaal ma fiican tahay ma nabad baa qabtaa taas ma anficayso walaal waxay u baahan tahay qof fahmaya qof oo ikhtisaa'i la hadli kara dadka qofka bini aadamku uu jirin kara yani way xanuunsan tahay qoftan qof xanuunsan waa miskiinta oo u baahan caawinaad oo garab xoog leh ilaa waxay rabtaa Soomaali dhan waxay rabaan aada intay u imaadaan qaadaan ama dadku isku sheegayaan madaxweynayaasha yareesiyaasha waxay rabaan noqdaan haddii rabaan doorasho inay ku reeyaan qoftan madaxweynaha magaciisa madaxweyne حسن شيخ يا أخي 4 سنة حكوميسي وقصليسي لهذه وقصليسي قصل كذا وقف فرح عن رنتي لكن أنا بحاربني هنا هالمرة نقصل سيس لأنه هذه أنت عندنا 4 سنة وقف سنين هذا قصليسي ولا مدحوين وحا كربني هنا قفتان مسكين تاعي وأقنا هاي لا بقول وأقوليسي كتا حمر أنت أوتكتد حوار قيمة لأنه كل راع مسؤول عن رعيته هذه مدحوينية وحاتها أودنك قبرتان وقبر أما هويدا وهوي صومالي cunugeeda dhinac jiif oo dhibaataysan waa ku tuugayna garkaada ku haysnaa hal mar aan qosolna anagana tookadina hal mar bis laana wax badan 4 sano waa ku fiirsanay adoo qosleys hadda anaga aan qosolno hadda taas noo suubin lahayd ama qof kasta isku soo sharaxay musharaxiinta aw murashaxiinta saajicishimba qof kamid waxaan jeclaan lahayn inuu il naxariis ku fiiriyo hooyadaas laana kulligood baasaboor ay wataan hay dhihin ana baasaboor ma ismuutay kari كلين باسبورا ودين قفكس ديار انتو قاطا وانا هو قفكستا اذن كان يغمد كان ugu yar inuu 100 kun $200 inuu ku jirto kontadiis laakiin waxaan rabay aan jeclaa ina idinka ma aragtay hal niiga mid ah hadaa dan iyo shacabka ka fikiraysiin Soomaalida inta hal niiga mid ah ama madaxweynaheeni oo qoslay asaba fiican waa qurux badan yahay madaxweynaha
نوقص المدحوينة حتى أنا ما عرفت وحارب إن أنا ناقص رسيس حلمة إن أوتكتب وإذا أكودت حمر وضن كان لديه إنجليز كا أجيس حمر الله بقول أوبست بليز جركا كويس أنا مدحوين داودل ومحسنتين إن نسو سوق صاحب gabadhii adama waa qabiilka hadlis قبرتي هذا بسم الله قبل كاليس naarta kalkacay aniga oo iska loo mar gaadhin hawi qurun lamad ma iska fadhiisataan oo koonfurtiin iyo shababkiina iska galaabataan ورتن قف جواب والله أنا مو جواب كري طق صديسة صنع وكابو سنتا ما أنت نعريك أوبان أنا كان يختله على كأن أنا هوس ماتين واحد كستو أصوص مسين على كأن أكو خرابتي بس بارك ما كستو بتجسين مثل سيرايا مدحوينها أدينك أبو محب قدو لا باسبورك إنجليزكا هذا كلا صومالي مين روح يلا هنا كجورتين جواب تاس أكو فيلم بوق ما قال لك أنا إلى أن لا مودينا له حنرجع marka waxaan rabay balaaleel waa ku maasantiin inta maanta noo daawateen maanta waxaan rabnaa inaan u wareegno qaybta haddeetan waxaan rabnaa inaan u wareegno qaybta oo su'aalaha waan iga ballan qaaday qaybtan waxaa waaye qayb ku saabsan su'aalaha barnaamijka markasta dhammaadkiisii waxaan rabnaa inaan soo bandhigno su'aashaasna qofkii ka jawaabo wuxuu leeyahay $50 oo ka qaadanaya shirkadda touch barnaamijka ugu dambeeyay waxaan dhahnay dadka aan lacagta ama $50 qaadanay dad Soomaali aniga ma ka wadin Soomaali kaligeedii waxaan ka waday dawladaha Afrika meel alla meesha ku nool yihiin Soomaali ka ahayn Europe iyo America iyo Australia laakiin inta kale oo wadamada kale oo hoos jiraan waxaan jeclaan lahaynay kulgoodii su'aasha way qusaysaa wayna ka jawaabi karaan su'aashana maanta waxaan rabay inaan nii sheego su'aasha oo maanta ama isbuucan aan soo bandhigayna waxa waaye su'aal oo taariikhiyan oo ku saabsan magaalada Muqdisho iyo magaca Soomaaliya marka waxa waaye su'aasha magaca Soomaaliya iyo magaca Muqdisho habkuu ku yimid ama yaa qoray ama yaa sheegay ama sababtee ku imaatay magacaas magaca Muqdisho ama Soomaaliya habkuu ku yimid jawaab yar nooga bixi magacaas soo ku yimaaday magaca Soomaaliya iyo magaca magaalada Muqdisho way isleeyihiin waa hal su'aal isla waaye laakiin magaca Soomaaliya iyo magaca Muqdisho qofkii yaqaan magaca Muqdisho habku ku yimid wuu fahmayaa magaca Soomaaliya wuxuu ku yimid jawaabtu waxaad ku soo diraysiin lambarka WhatsApp oo ku qoran shaashada oo kanaalkeeni oo YouTube-ka ah ama halkaan oo igu soo baxaya waxaad ku soo qortaa magacaadi iyo magaalada joogtid aan ugu soo qoraysaa haddaad ka jawaabtid iyadoo gaaban aan jeclaan lahayn waxaan ogaanaysiin walaalayaal su'aasha qofka ka jawaabo wuxuu leeyahay jaayisad $50 ah oo ka qaadanaya shirkadda touch oo waxaa kalena nii rabay inaan nii sheego inaan magaca dadka ka jawaabeen magacyadoodii hal meel inta iskugu keenayno oo hortiina aan ku tusinayna habka qof koreeyo oo nasiibkaas koreeyo inta saxdi dhan hal meel aan iskugu keenayna waan idin tusinayna programkaas like iyo share iyo subscribe noo sameeya waana ku mahadsantihiin waa inuu kulan dambo